kaga hadalno haddii ilaahay yiraahdo heesahaaga adiga boxina waa ciyaaraysaa murquuna geedkaasay ku leeyihiin aniga laftiyaygu beri baa waxaan lahaan jiray six bags hadda xabad baa ii hartay shantii kale meel aadi ma aqaano agartay waxaan jeclaynaa wax kaa weydiiyey dad badanna ayna weydiiyeen oo qoraal noo soo qoreen heesahaagu maxay u yihiin dagaal iyo feer iyo iskiifo iyo nacalla shaydaan ku yaal iyo tabliiq baan kuu dirayaa iyo maxaa la yidhaahdaa 40 cishaan ku dirayaa iyo holof baan kaa dhigayaa iyo dhabanadaan ku casaynayaa maxaad ku dooratay heesaha noocaas heesahan karbaashka runta fanaan kaliya heesihiisu ee badanaa karbaash yihiin baan ahay kuwa hadda soo baxay waan arkay dhalinyarada cusub ayagana waxaan leeyahay shaqo fiican baad heesaan horey u socdaan idin leeyahay heesaha karbaashka dadka aniga aan la dagaala horta dad la arka maaha saasoo ee tahay waxa aan la dagaalaya ani inbaa og waana wax nolosheeda ku saabsan weye ayadoo sidaa heeta cabdixaafidow ayaa waxaa laga yaabaa dadka qaar in ayaga oo dad qaar kuwa ila joogo ama kuwa iga fogba waxay noqdaanba waa gart oo ay dhahaan heestan anay igu socotaa ama anaa li karbaashaya maalinka fanka soo galay 2005kii ayaan anigaas official heesteeda iyo videoga waxa dhan ay soo baxeen 2005 ilaa iyo hadda heesayga waa karbaash ilaa aan ka baxayana waa wax la istaajinaa ma way socdaan waxaan la dagaalaa wax la arka ma aha dad la arka ma wax ay qusay as private ee weey waa number 1 number 2 waxa weeye qofkii asaga u qaatay inaan ku wado mise ma arto xogaa oo dad isku yara beerana waxaan dhihi lahaa haddii aan ugu talagalo oon adiga aan rabo adiga kugu wada hees magacaadan sheegi lahaa holofoana kaa dhigi lahaa dal baana ku yeeli lahaa mana cabsada haddana kuu sheegaya qof allah subxaana watacaala bisaan ka cabsadaa laakiin waxaan la dagaalay aniga qurumaha la dagaalayo iyo waxaan aniga heesayga iyo another way weye nolosha aniga aan kusoo koray iyo sida aniga usoo koray iyo waxyaalo kaleta iyo arrimahayga ka hadlanba hees walba oo aan qorana waxay ka hadlaysaa aniga saa usoo koray weye because dadka bini'aadanka waa isku wada muuq waa dadka kor baa la wada siman yahay laakiin qofka noloshiisa iyo siduu kusoo koray iyo wuxuu soo maray iyo wuxuu qofka seestaan adima ogaan kartid maxaa yeelay gurug ma wada nooleedin marka qofka asiganto aniga ii imaado i weydiiyo oo dhaho ilka caso arrinta heestan maxay tahay heestan xagee u socotay maxaad ka waday then waan u jawaabi karaa laakiin dee qof iska maartay qof walbana uma jawaabi karaa qofka rabo inuu ogaadana then waan sheeko dheer weye heesayga badanaan hees walbo aan qoranayo nolosheeda ayay ku kooban tahay oo ku saabsan tahay waa wax laga hadli kara maaha marka arrin nolosheeda iska movie waa gartay haddii su-aashaas aan ku weydiiyey su-aal barbar taalla aan ku weydiiyey qurumahan aad sheegaysid oo adiga kugu dhex jirood u jawaabaysid ma dad soomaalida ka mid ah oo yaroo dhibaato kuula yimidba mise waa dad kale iyo fartiin kale oo dilaysid wax inta ka sheegi kara maaha waa gartay waa kugu ixtiraaminaa waa ka gudbaynaa waxa kaloo jirta hees kale oo la yidhaahdo jaallayaalow jaallayaashaanu ma siyaasiyiinba ma shicibba ma ganacsata ma bulshada rayidka ayay yihiin ujeedadeeda waa maxay heestan heesta jaallayaalow waxaan kusoo dhisayay oon ku taageersanaa sheekh shariif madaxweynihii hore soomaaliya heesta kusoo anaa qoray soomaaliya sheekh shariif nin fiican weye ninkaas baan kusoo dhisay marka dadka qaar hadda ilka caso maxaa siyaasad ku falay maxaa siyaasad geeyay fanaan baa tahay kuus baa tahay war waddankan aniga codkayga hadduu meel dheer gaarayo aniga waxaa walbaan hadlaa because waa inaan waddankayga dadkayga dalkayga u hadlo weye sheekh shariif asagoo waxba ahayn baa ani sheekh shariif aan taageeri jiray waan kusoo dhisay waan dadaalay ilaahay amarkiina de waa kii aan kulano minnesota ku kulano soo madaxweyne meeshaana ka qaaday inaan aragti mooyey marka heesta waxay sheekh shariif aan kusoo dhisay waa gartay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan waraysiga aan ula yeeranayno fanaankan waayahan dambe gilgilaya fanka soomaaliyeed
وحقاك هدي أن كوغو سو دوية أذيغا لفتيغاغا سؤالا غارا كويديو داد بدن oo ku taageera aysan waxba ka ogeyn ama se ay jeclaan lahaa inay ogaayeen horta ilka case ciyaal ma dhalay caruur ma leeyahay maanaan maqal maanaan arag dadka badankooda kuma yaqaanaan kuma arkaan heesahaaga iyo fankaaga la socdaan saaxiib bal on the spotlight haddaan ku saara adiga ciyaal ma dhashay alxamdulilah 3 wiil baa ii joogo oo reer quraash ah 3 wiil oo midka ugu weyn la yiraahdo Sajid Maxamed Qays ka ku xiga Saahim Maxamed Qays ka ugu yar Saarim Maxamed Qays marka 3 wiil baa ii joogo alxamdulilah ilaahay mahad iska leh waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakeeyo waa wax lagu farxo nimanka yaryar koodkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaca Allah ka dhigo waa hagaag waxaa jirta aysan dadku ogeyn oo kale ninkaagaan murquhu geedkaas ku leeyihiin oo xooga badan oo dhulka Soomaalidu ay sida weyn u taqaan waxaa jira 3 xabadood inay kugu jiraan haatan aan kula hadlayo sidee xabadahaas kugu dhaceen yaa kugu dhuftay laga yaabo mustaqbalkaas ka soo saartay actually saddexda waxaan sababta ugu dhacan baa waxay ahayd waxaan yaraa waxaan jablo sigaar baan ahaa gaari aan la socdaal hoosingo iyo dhoble intuu dhexaysa naloo galay waana la xabadeeyey calaa kulli xafar qof baa dhimatay dhaawacana badnaa dadka dhaawacaan ku jiray 3 xabaa igu dhacday xabad baa igu hadhay 2 iga baxday actually marka in lama qali karo oo dil la qalo meel khatar ku jirtaa wallahi marka yaa runta 3 ugu midna xabad baa igu hadhay meel khatar meeshan hoos bay ku jirtaa marka alxamdulillah ma iskala waa sheeko dheer waayeen marka ayada kaliya hor saac qaadanaysa laakiin alxamdulillah ma qajir baa hay markii 3 xabadood kugu dhaceen yara aad baan yara waa gartay yaraantaadii baad ka hadashay waxa kaloo jira oo aad dad fara badan ay la yaabi doonaan 95kii adigoo wiil yar oo gabar ah waxa dhacday inta badan wiilashu markay yar yihiin aabahood baa wuxuu geeyaa dhakhtarka waa la gudaa ama reerka qof yimaadayo waa la gudaa adigu gacantaada inaad isku gudday baan maqlay arrintaas maxaa ka jira عبد حافظ ما وقت عرض dadka waxaan jeclaan jiray dadka duunada aan jeclaan jiray different inaan noqdo waxaan noqdo taba carruurta markay dheelayaan garan gartii wax isku dheelayaan aniga waxaan jeclaan jiray waxaan gooni inaan ku dheelo waxaan maskaxdayda aniga yaraanteeda la soo koray marka carruurta gudahay waxaan carruurta lama dhowr mar baan oo yar baan in la gudo waan ka cararay oo abana aad buu ii jeclaayo markaan ay korisaan ayadana aad bay jeclaan markaan qayliyo wiilkii dhaafo marka waan diidi jiray yani calaashan waxaan dhihi jiray waay nin waxa qofku muxuu dheeri calaashan waxyaalo khaldanaad aniga isku suubin karay oo aniga qayse because aniga khibradu malihi wax mi laakiin wax calaashan maskaxdayda ku jirtay in aniga waxay qofkan uu suubin karo calaashan qofkan hadduu wax suubiyey oo waxaan uu suubinayo aniga maskaxdayda carruurnimo ugu jirto calaashan qofkan carruurta gudaaya muxuu dheeri ama calaashan anoo yar baan carari jiray markii aan xoogay siiro weynaaday oo diidan meel aabahayna markuu rabo inuu gudo mise qaraaco mise uu subiyo ayaa dhihi jirtay isku no wiilkay calash aad bay jecel Allah naxariis jannada firdaws la waraabiye marka maalin ma kamid waxaan kaalay maxaa carruurta waa nig gudaa muxuu dheeriyay waan baxay sakiin la yiraahdo Tobas ina xasuusto mooyaan soo qaatay wixii ka dambeeyay story marka waxaan ka salaamay labadii wiil ila joogay maxamed aadan aad baan u salaamayaa oo soo kornay real dobley كابو أصلاً أدنى سلام حسوس أكرمي ريال دوبلي جالب حسوس بان سكجري لون تامه وقت وراي نيو سكينتا توب باسكا iyo markaad kurka ka jartay wixii ka dambeeyay halkaas aan uga haraynaa waa ku mahadsantahay kulli aniga waa iga geesisan tahay waxyaalaha kale oo aan jecelnahay inaan ku weydiino waxa kamid ah waxa waayahan dambe social media la isla xiyaacayay adigoo ah boqorkii raabka inay jiraan dhalinyaro hadda soo baxday oo markaas adigu laftigaagu ay jaafajiriq idinka dhaxayso su'aalo isugu jawaabtaan heeso
tabliiq la isku dirayo digada la isaga dhigayo la isku naaxinayo dhabanada la iscadisaynayo ma cidaad ishaysataan baa jirta annagoon cidna magacaabaynin oo aad mararka qaarkood heesahan aad darsi ugu dhigaysid cabdixaafid su-aal fiican baa weydiisay maye horta waxaa weeye anigu waan arkay cabdixaafidow arrintan mediadan ku arkay aniga qaysa marka horeet waxaan u malaynayay inay tahay brank laakiin dhowr beri markay socotay arrintii arkay oo dadka kaletana ayagana laga waalayo oo iska waalayaan oo caytamayaan waan arkay aniga jo iyo jaton oo ma dhihin ani de marka horetaba dee 2000 kuu sheegay 2005 ilaa hadda karbaashan wadi dee karbaashkayga ana iska watay qofna anu waday ani qof aan ula joodo oo qofka asaga aan rabo inaan holof oo run aan ka dhigo dee waxaan u malaynaa qofka jidka isku mara laha ku adkaan lahayd maxaa yeelay uma soo jeesanin ayagana dee wax aan la tartami karana ma aha dee dad aniga qofka hadda dhalinyarada hadda raabgaraynayso dadki gaar ahaan caytamayay oo ogta afkooda waxa ka baxayay oo taariikhda dhashayna aad ogta ani markaa fanka soo galay bay ahayd علشان هدي أن أجواب دين ويل نم يو ويل كيس مارتي هذيك دين ويل كيس أجوابان أنا كنا قلنا مقطع مركا مجوابين وأنا أركاي هذا كيس مش لكن ستيل وضدك وطل وحاسنا وده ميديا كلها الله سقطها أنا تاس ما يقف أنا واحد بوني أو مجد أنا أيجنا كمودين لكن هدي أنا قوة لها دي في كيس من قلنا سام أرنت سام ويكدمنا لد مدافع ولسنا استعمالها فانت عملها arrintaas waxaan rabnaa inaan soo afjarno yacni waxaad leedahay heesahan aad qaadaysid iyo tabliiqan iyo tigidhadan aad dadka u jaraysid cid gaar ah oo ay ku socotay oo dhalinyarada hadda raabka qaadaa ma jirto waxa weeye waa qayb ka mid ah barnaamijyadaadii karbaashkii heesii lagu yaqaanay waa gartay waxaan umaleeyaa dadku aad bay oga qanceen u fahmi doonaan su-aashaasna weydiinayay dabcan sida ayagu rabeen inay noo weydiiyaan nooma weydiinin kumaana weydiinin oo ahayd hebel miyaa isdagaalsantihiin anagu dad waaweyn baan ahay wax badan baan xeerinaynaa in la isdagaalana maba rabnaba sideedaba dagaal in lagu filan wayna soo martay haddii aanu kasii soconno arrimahaas waa kan dee marquuga kuu go-an yihiin oo six bagga aa leedaho geedkaasaa leegtahay anagu ritaayad baa noqonay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sportiska kubadda kooxaha kubadda ciyaara yaa taageerta kuwa badan baa taageera laakiin tiimka aad u taageera waa Arsenal aa gartay Arsenalka Ingiriiska ka jirta Ingiriiska Arsenal baan ka taageeraa Spain Real Madrid baan ka taageeraa France PSG baan taageeraa ilaahay ku roonay Talyaani waxaan taageeraa Inter Milan marka laakiin Arsenal baan aad u taageeraa Arsenal baan anigu yaraanteedii AC Milan iyo Juventus baan taageeri jirnay markaan barisamaadkii Juventus iyo AC Milan AC Milan Juventus ma dhinteen bismillah waxaan daawan jiray nin la yiraahdo Maldini oo ciyaara oo AC Milan u ciyaaray de wax ka hadlaya Paolo Maldini باقي سيد كل وراء كان لي مرة بسم الله الرحمن الرحيم بدر يا كفر يستمر والله وراك ليرى القبلة يا عبد الحافظ نيو كوبدا عياره waxay igu dambeysay 1997 ciyaarteeda ma jeceli daawashadeeda ma jeceli hortayd baan ka noqday baashas niyo laakiin bariga hore macallin baa ku hanjir عبد الحافظ قصته دمبي بها نقطه سؤال خلد بها نقطه ما قصنا جرتها نيو أنا 45 baan jiraa oday baan ahay ما معقول ما عادي وش حاجه طريقه ده believe me 44 baan jiraa okay dhinac kale aan dhigo 95kii markaa adigu isgudaysay oo inanka yar aad ahayd anigu London baan joogay xaas baan lahaa markaa aan guursaday ما شاء الله والله نبي ادم باكاويني marka ninkaan oday weeye da' weeye saamadiisu maahan kaama muuqato laakiin goya haniyo waxa waaye waa weysada weeye gabar wanaagsanna waa qabaa maasha Allah ما شاء الله ما حاس كذا ما والله وكبر عشانها حاس في عم بالله
ما شاء الله ما شاء الله نيهو أرين وحاجرتا مهمة جارة بلشة الصومالية دولة fanku waa dhib badan yahay dadku aad bay uga cabtaan hawl badan gaara lagama helo laakiin mararka qaarkood kooxdii waa beri baad xasuusataa oo dadka hagi jirtay maalin dhoweyd adiga iyo saaxiibkay maxamed kaadheeri waxaad qaadeen heestii dalkan yaa iskale oo guud ahaan gilgishay meel kasta guri walbana gashay ummadoo dhan ay si weyn u dhegaysanayeen soomaalinimo isku tasha dhiigga daadanaya inaan noqonnay gob jabtay laakiin aanan gun ahayn oo aad arkaysid maanta haddii qarax u muqdisho ka dhaco berrito subaxii haddana gurigii waa la dhisayaa 30 sano dad qarax ka dhexdhacayay oo haddana maalinta ku xigta gurigii dhisaya soomaali baa laga hayaa dad adkaysi badan karti badan weeye gob jabtay baa noqonnay waxaan xasuustaa hotel ku yaala muqdisho aliid la yidhaahda nin ka mida siyaasiyiinta soomaalida ganacsada ka mida khiyaara cabdullaahi la yidhaahda uu leeyahay maalintii uu dumay maalintiiba dadku berito dhisayo yani that is how resilient dadkeena ay yihiin annagoo xaaladdeenu ay saas ku jirto ayaad waxaad soo qaadeen heestii dalkan yaa iskale oo na weydiisay su'aalo muqadas oo in la isweydiiyo badan ee la mudan dad fara badanna ay u tooseen ay u riyaaqeen heestaasoo rikoor bay jebisay heestaas maxay ku timid maxaad ku alifteen ujeedadaad kala haydeen maxayse ahayd cabdixafidow heesta dalkan yaa iskale waxay ku imaatay waxaa wada fadhiyay aniga iyo fanaanka shanta soomaaliyeed ee ku magac dheer maxamed kaadheeri marka waxaan daawanaynay tv-gaan daawanaynay annagoo tv-ga daawanayna waxaa soo galay dad lacag loo qaybinayo shacab lacag loo qaybinayo oo xasuusta ma $1 bay ahayd waxbaa loo qaybinayo marka waxaa la dhahayay numberkan lagu tuuri calaashaan dadka ayaga lacagta loo qaybinayay waxaa lacagta loogu qaybinayay inay mudaharaad ka qayb galaan oo meesha ay imaadaan oo mudaharaadka hebel dooni mayna ay dhahan marka annaga wada fadhino calaashaan sheekadiiba markii aan aragnay ayaan ani maxamed kaadheeri saana u fadhin waxaan xasuustaa iska sheekaysanayna tv aan iska daawanaynay ayaa marka saana isku fiirinay maxamed kaadheeri markaasaan waxaan dhahay marka qisadii wariyaha sheekadii weliba socotaa dadkina meeshii kaameradii wixii lagu qabanayaa markaas maxamed kaadheeri waxaan dhahay dalkan yaa iskale maxamed kaadheeri markaan dhahay ayaa maxamed kaadheeri wuxuu dhahay waa rune dalkan yaa iskale marka ani maxamed kaadheeri marka waxaa weeye waa is very very talented waay ninkaas maasha allah ilaahay u daayay fanaaniin badanaa la shaqeeyey laakiin daagaay wax kale waaye masagana sidoo kale waa sida tin waa si farxii fiska hadaa waxaan farxii fiska very talented waan ku dhahayay xagga dumarka is very ninkana is waa this guy mucjiso waxyaalaha uu suubinayo fanaan suubinayo wali waa ugu yaryaa oo dee oo maartay R&B ku hayso wali maarkin wax kale markaas sheekada isku celin dalkan yaa iskale nin waa runa dalkan yaa iskale markaas dalkan yaa iskale dalkan yaa caalamka yaa iskale arduleega yaa baaraha duleega yaa markaas maxamed kaadheeri markuu aan intii aan isku keennay baa hawshii musiga markii la bilaabay inaan maartay aan saarno wixii dhan ilaa amarka heestiid bay iska noqotay adduunka afartiisa dacal الله dalkan yaa iskale dalkan yaa umaqa caalamka yaa iskale arduleega yaa baaray duleega yaa baaday nin dalkiisi dayacay tukaale oo iyo anigu dadka folkii sugaanta aad ugu fiicnay laakiin waxaan ku xaqiijin karaa heestaas waxaan u dhageystay si aan caadi ahayn ujeedaduna waxay ahayd waxay ka hadlaysay xaaladda aanu ku sugannahay maanta dalkeena hooyo uu ku sugan yahay waxaanu ahaan jirnay waxaanu noqon karno iyo inaanu muraayadda isku eegno oo aanan cid kala eedaynina annagu aanu dib isugu noqono marka aniga waxaan kuu xaqiijin karaa adiga iyo maxamed kaadheeri abaalkiina ma gudi karno waa kuu mahad celinaynaa 100% in fact waxaa jira arrin anigoo ii gaara oo aan rabo adiga iyo maxamed kaadheeri in aad maaragtay iga aqbashaan bulshada Soomaaliyeed horteedana aad igaga aqbashaan ujeedaduna ay tahay heestaas iyo waxay ka hadlaysay way itaabatay ii dulqaado wax yara waa mahadsan wax yar ii dulqaado saaxiibow halkan waxaa ku jira
hadiyad qaali ah waxaan rabaa inaan soo saaro weligay cid hadiyad ma siinin anigu raalla waxba indhaha taagin halkaas waxaa ku sugan calanka Soomaaliya buluuga xidigtii ama qanada aragtay no way yo you're kidding me bro halkaa waxaa kaga qoran Cabdixafiid Show iyo ilka casaqays magaca maxamed inaan ku qoran rabay magaciisa marka waxaan rabaa adiga iyo ninkan laho ka dheeri inaad naga aqbashaan idinkoo mahadsan 100%. yes akura wallah awjeeda xidigtaas waxa weeye waa dhaxalkii awoogeen inta galbe calanka Soomaaliya ee galbe calanka Soomaaliya waa cadaan iyo buluug way calanka Soomaaliya furaanada anoo qabo weligay maadan arkinin waxaan u qabo kluba ku jiray amase sheekadan soo socota ayaan ogaa marka waxaan rabaa inaad iga gudoontid qof London ka soo tagaya idinku soo dhiibaya gudaha idinku keeni doona marka waa mahadsantahay saaxiib inta ayeenka marka dadka Soomaalida markay danta ummadda u istaagaan oo aan la kala qaybinin oo aan la isku dirinin oo dhiigeenu daadanin suugaantu markay macnaha leedahay waa markaas marka saa awgeed baan kula jeclaaday adiga iyo Maxamed Kaadheeri iyo taageerayaasha bulshada Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan idin taageera inaad iga guddoontaan insha Allah ta'ala ka guddoon legendary aad baan ku salaameynaa Kaadheeri thank you aan kuleenahay Maxamed Kaadheeri haddaan u sheegayaa si kadis baad haddaan ogaa inaad wax siiraysa Maxamed Kaadheeri soo wadi lahaa kale oo gal bilad baan loo hayay laakiin ma ogin si kadis waa gaaday aad iyo aad baan ku salaameynaa waxaan halkan ka salaamayaa dadkii soo saaray dhamaan halkan ka salaamay adiga horta halkan thank you ku leeyahay Cabdixaafid horta mid baan ku sheegaya adiga Cabdixaafid waxaad wariyaasha dheer tahay wadanimada dheer tahay hadaan ku sheegaysiya waxaad tahay nin wadani oo dadkiisa jecel oo dalkiisana jecel waana ku fiirsaday mar walba Soomaaliya ayaa difaacda gaar ahaan badda Soomaaliya iyo waxyaalo badan oo waxa kugu arkay wadanimo that's why aniga aad ku taageera heesta dalkan yaa iska leh intaasoo wariye ayaa soo wacay intaasoo milyan bay gaadhay qofka kaliya bilad igu siiyaa tahay heesta dalkan yaa iska leh marka waa adiga dadka dheer tahay weey waxaan ku leeyahay walaal jiraata hore u soco aniga Maxamed Kaadheerina aad iyo aad baan ku taageernaa we love you thank you so much walaalkay Cabdixaafid Allah ku ciiseeyo walaal waxa weeye wanaaga waa la isku taageeraa garab baan la isku siiyaa dalkeena iyo dadkeena Soomaaliya anigu waxaan aad u necbahay inaan arko Soomaali isfuquuqaysa Soomaali iskala soocaysa Soomaaliland dheer iyo laangaab isku kala saartay qof kasta oo Soomaaliya sharaf iyo ixtiraam buu uga mudan yahay regardless of meesha aad ku nooshahay tuulada ku dhalatay walaalkay iyo walaashii baati haddaan inta ka soo tagno waxaad tiri waxaan mahad celinayaa dad abaal igu leh waxaan jeclahay dadkaas inaad dul martid dabadeedna soo koobina jilayraad dhammaan in dadka aniga soo saaray qayb waxay qaatay oo ugu horeey Cabdinaasir Cirra thank you so much walaal jira tahay Cabdinaasir waa Cabdinaasir waa walaal jira waxaan soo kooban gareynaa Cabdinaasir Cirra because qisooyin badan ayay Cabdinaasir Cirra inuu markuu soo saaray qisooyin badan baa jira aniga asaga oo u taagnaa ama dagaal uu galay ama martay oo loo geystay oo aniga dartay Cabdinaasir Cirra walaal jira weey walaal jira tahay thank you so much baan kula dhamaan dadka aniga fankay ka soo qaabtay sida Fuad Medina Black Fuad la yiraahdo asagana oo waagi 2010 soo saaray walaalkay asagana halkan ka salaamay legendary weligay miilo marbo saxdu ku soo dhaca Cabdisalaan Caato asagana jalayaal iyo dhamaan aniga fankay qayb ka qaata asagana waan salaamay gaahir berber aad shaqo min Allah ilaahay sidaad amal annaga iga dhigay insha Allah bidnillah kariim waa kugu soo daba jiraa dhammaan AJ Evans Musa from Sweden boqor Musa asxaabta dhan halkan aan ka salaamayaa oo MMT Real Melbourne Australia halkan aan ka salaamay love you waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyada macaan mom hooyo I love you you are my everything adlaanta meesha ma joogeen hees hooyo la dhahana waan soo wadaa aad
iyo aad baan kuu salaameynaa aniga iyo cabdi xafid halkan baan kaa salaameynaa hooyo I love you insha allah waa gartay ugu dambeyntii waxaad tiri erey aad leedahay ninkaa odaga fankii uu ka baxay shiikh weyn buu noqday anna waa soo socdaa maxaad saaminaysaa inaan ku waarno ma rabno moogta waxaan maskaxa waxaan waddanka Soomaaliya nabad noqoto fankan iyo hadda Soomaaliya wax walba u hareebay ilaahay maartay nabad ha ka dhigo Soomaaliya cadow ay leedahay marka Soomaaliya marka nabad noqoto ee fankan ka baxaya Cabdi Xafid Soomaaliya cadow ay leedahay hadda ku sheegay dhageyso wallahi oo billahi oo tallahi magac ilaahay ku dhaatay man dhar ka xun baa jirto Soomaaliya cadowga ugu horeeya yana been lagu sheegay Soomaaliya cadowga ugu horeeya ee Soomaaliya haday kacdo oo nalkeeda dadweynaha laga arko ifkeeda oo ay hormarto wadanka ugu horeeya ee burburaya laakiin ka soo horjeeda cadowga waa imaaraadkan ku sheegay dhageyso imaaraad Soomaaliya haday nabad noqoto oo hormarto dhaqaalaheeda Soomaaliya oo ayadu isku filnaato xaalado dhashay imaaraadka dhulkay galaysa haddan ku sheegaya shalay imaaraad qofkay tuugsanayeen anigu ahaa marka waxaan ku leeyahay wallahi inaana been ku sheegeen kii ku farxay iyo kii ka naxay asaga jirtaa wax ma qariyo haddaad Soomaali dhalad tahay imaaraad meesha ku aragto gub haddan ku leeyahay imaaraadka waa cadowga dalka waa cadowga dadka Soomaaliya waxay meel la gaari laadahay waa nimanka wajiga soo dudubtay diinta isku qariya wax diino haystaan ma laha wallahi magac ilaahay kugu dhaartay research waxba yaa lagu dhihin Kenya Sani kuus waxaas yaa lagu dhihin yaa been lagu sheegay dadka lacagta dhiibaya qof walba soo diraya Soomaaliya ka soo horjeeda horumarkeeda wallahi waa maalinka imaaraadka ee burburtana Soomaaliya haddii noqon weyda meesha adduunka kali ee dalxiiska loo aada dhigay u duraan ku dhaca Cabdi Khaliq والله ما إله قدر مرك وحوي صوماليا وحلوها مر العذاب وأنا ما كنا يجري إمارات كوي إمارات مانك أوبر برو أو إمارات أما أوفرها نجا قاعدة صوماليا هداناي مس أوبر برو هدي صوماليا عيارها الدون كان أولمبيك جمال والبي وورلد كاب هدي صوماليا وورلد كاب قاعد اللي يدرون كنا صومالي because إله صومالي وضد أقلب بدوي ونوبر برونا إنه أسر جودان إله أقلب وسيه حتى وضد والبا أنت وحكفرنا بيزنس كوارت مال بس أنا هذا انت جو نيروبي ان جوغا انا نيروبي ان جوغ waa artay meeshan ya kala wada mataqaana Soomaali ba kala wado lama raba marka anaga waxayna dhahan yahuud waxay dhahan calaasha aqli yahuud ama leeyihiin dhahan Soomaalida deegasiya marka imaaraadka waxa weeye Soomaaliya dhalinyarada Soomaali idinka ayaa wadanka bedeli karo nimanka imaaraadka la dhaho sida iskaga celin lahaydeen falkeeda gala oo wallahi magac ilaahay ku dhaatay laakiin imaaraad inta lacagta ku dhiibays in la burburiyo Soomaaliya meel horumar ma gaareen maxaa yeelay hadii Soomaaliya ay dhisanto imaaraadka burburay haddan ku sheegaya been ma wallahi because imaaraadka iyo Soomaaliya waa artay shalay anagana tuugsan jireen laakiin walaal baan moodeen walaal jira maaha aad iyo aad baan idin salaameynaa warkacnimay wixii dhig loo kaca intaas waxaan jeclahay inaan waraysigan ku soo gabagabeeyo aanu la yeelanaynay fanaanka Soomaaliyeed boqorka shanta Soomaaliyeed boqorka raabka landheere magacyo badan wala taqaana ma sha Allah aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa si kaliya laaba mar labaad adigii maxamed kaari waa mahadsantiin hadiyada naga aqbasheen waa ku mahadsantiin dhiirigelin bay naga tahay dadka Soomaalida la dhiirigeliyo mid jooga magaalo kale iyo deegaan kale Brit inaan dhiirigelino annagu aan isgacan qabanno qofkeenii wanaag sameeyo la gacan qabto waa daruuri meeshuu rabaa ka soo jeedo qofku doonaha waa daruuri waxaan jeclahay inaan mahadceliyo walaalkay ilka case boqolkiiba boqol ku mahadcelinaya guuleyso waxaan kaloo jeclahay inaan mahadceliyo وري عبد الفتاح علي شروع اكس وري معلن كوين فيلم ميكر اسكو بدلي فيلم كيسان هورين بدل داودي عبد الناصر عرو نينكا لندن سكله يوروب ادي ادو ماسيه كاسوانين waxaan kaloo jeclaan maad luqmaan oo kula jooga faad cabdi oo ka tagay luqmaan ila jooga faad cabdina ila jooga faad cabdina adi adu ma hadlayna walaalo jiro way inta maqana Allah soo arooriye ugu dambeyntii yaad jeclaan lahayd barnaamijkan inaan ku casuunaad isleedahay next week iyo wixii ka dambeeya aan soo qaban lahayaa nimcadare soo qaban waanu raadinaynaa
waanu soo heli doonaa haddii ilaahay yidhahdo haddii naga ogolaato invitation baan u dirinaa guurayso farxiifiskii libcadare isoo qabo libcadarena farxiifiskii isoo qabo waa gartay ballan wey waan raadinaynaa haddii labada waa dhudhuumanaya soo qabo labadaa gabdhood walaalaheeno fanaaniinta waanu raadinaynaa waa mahadsan tahay intii iyo gabagabadii meel kastoo dunida ka joogtaan waa ku mahadsantihiin daawashadiina guul baa idiin rajaynaynaa guulaysta dalkan yaa iskale dalkan yaa u maqan cawaanka yaa iskale